aqoonyahanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Saraar ayaa waxay hoteelka caalamiga ah ee Shacaynaba ay munaasabad soo dhaweyn ugu qabteen aqoonyahan Maxamed Haybe Maxamuud kaasoo muddo 10 sano ah waxbarasho jaamacadeed ugu maqnaa waddanka Malaysia haatan dalka ku soo laabtay. aqoonyahan Maxamed Haybe Maxamuud ayaa waxa uu soo dhameeyay isla markaasina uu soo qaatay shahaadada digriga iyo waliba culunta wuxuuna sidoo kale shahaadada sare ee masterta ku soo dhameeyay waddanka Philippines. munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen guud ahaanba aqoonyahanka iyo ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Caynaba ayaa waxa ugu horreynba ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii kala duwanaa soo qaban qaabisay isla markaasina munaasabada u qabatay aqoonyahanka waxayna aqoonyahankan ku ammaaneen sida fiican ee ugu dhiiriday inuu ku soo laabto dalkiisa hooyo isla markaasina aqoontii uu soo bartay uu ku soo celiyo bulshadii uu ka dhashay. waxaan leenahay aqoonyahan professor ku soo dhawow gobolkaagii aqoontaadii waan u baahanahay waxaan doonayaa bal inaad lectureynta ka badan aad siiso dhalinyarada oo bal waxa adduunka sida wax loo barto iyo sidan Soomaaliland wax loo barto kala duwanaanshaha u dhaxeeya inaad noo sharaxdo iyo nolosha kale ee maxaa la dhahaa basic waxa weeyaan dadkan kulliba ku yartahay maxaa la dhahaa qof intuu wax soo bartay yiri dalkaygii ama degmadeedii baan wax ku celinaya marka aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa runtiina ugu amaanaya go'aanka fiican uu qaatay aqoonyahan Maxamed Haybe Maxamuud oo markuu maalintu dalka yimi isla maalintii ku xigtay Caynaba yimi meesha uu ku dhashay wax ku bartay aqoontiisii ugu horeysay uu ka bilaabay si uu dadkiisa iyo deegaankiisii uu la kulmo wixii uu soo bartayna ama intaaba imika adduunku salliba ku wada fadhiyaa uu la socdaa wax ka maqan ma jiraan marka wuxuu bal waxa ay deegaankiisa dadkiisa uu ku soo kordhin karayo ama halka way ka jilicsan marka insha Allah kulamadan wuxuu jeclaystay inuu ugu horeysiyo dhalinyarada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada qaybo fara badan qaybta jaamacadii ku jirta qayb isboorti qayb saxaafadii qayb waxa ka fadhiya shaqada kun nooc la weeyay marka dhamaantoodba wuxuu jeclaystay in loo wada ballamiyo kulanka ugu horeeyo la qaato dhalinyarada wuxuu la qaadan doonaa kulamo kala duwan maamulka gobolka Saraar guud ahaantiisba iyo gaar ahaan maamulka degmada xildhibaanada golaha deegaanka loo balasay marka maxay aad baan u soo dhaweynaa runtii maxamed haddaan waxbarashadiisa ku yar noqdo maxamed markuu halkan joogay waxbarashada ku fiicnaa iska wadaa markuu burcad tagay uu ku sii fiicnaa haddana waxyaalaha la yaabo waxa kamid ah maxamed maraan suuraysan wuxuu yiri markaan dalka joogo waxuma maran jirin marka waxa lu maleeyaa waxbarasho uu dhaafay maxamed inta badan waxaan ma cusba oo qof qurbo joogo dibadda wax ku soo bartay inuu yimi kow kama aha laakiin maxamed wuxuu kaga duwan yahay dalkii wax ku bartay isla jaamacado college waaweyn wax ka dhigay oo runtii ka faa'iideystay aqoontiisii oo maartay nin Malaysia wax ka dhigay oo malayn maayo inay meel kala qabanayso intaan ogahay Malaysia xitaa dadka Yurub jooga waxbarashada way u yimaadaan Hindiya iyo kuwaas waaba ka horeeyaan horta waa habeenkii koobaad inuu qabsano xaflad lagu soo dhaweynayo qof aqoon-yahan u dhashay gobolka Saraar aniga farxad weyn bay horta ii tahay maxamed badan baa la socdaanu kilibadiisa oo aan daawan jirin kastana Facebook isugu jirin laakiin si qof soo share gareeyay markaan arko kilibkiisa waa sii daawan jiray والله أنا كورت محمد وحنا كحسوسة أنا لا دعي هبين كليبان داوني قرت الوقت كله اللي ما بقرن لكن ستيل كيسة كلمة أي أنا لا دعي هذا ما بقرني والله الوقت كله اللي قرت الوقت هذا أنا ما بقرتوا قرت إنجليزي ما لكن الوقت هذا ما فاهمين لكن أنا قاب كوه هذا يسود هذا يسود أقوم تو برتي قف كشير كيسة أي لك برتا لك قرتا أقوم تكوتشرتا ومركي الرئيسي حفلتنا عنا خلاء إن أي كقبصانتا عينبا ama hoolkan aynu joogno waa xafladii horeysay noocan oo kala ah ee ay dhalinyarta aqoon-yahanka ah ee jaamacaduhu ay ka soo qayb galaan sidoo kale fikirkani wuxuu ka yimid dhalinyarta gobolka farxad weyn bay tahay aniga farxad gaar ah bay tahay waxa kale oo aynu caawa madashan marti inoogu ah aqoon-yahan Maxamed Haybe Maxamuud oo dalka ka maqnaa muddo 9 sano ku dhow 9 sano iyo santiga oo dalka ku soo laabtay oo markii uu madaarka cigaal ka soo degay qofkii u horeeyay oo u tagay aan ahaa isla markiibana uu yiri waxaan rabaa inaan baxo aan tago Caynaba joogtaa inaad gobolka aad ugu daawid iyo wixii kale inta ka sii banaad awoodidba waana noqon xafladan tii koobaad aad horumarka aad noqotay shakhsigii koobaad ee horumarka iyo aqoontiisa ku soo celiyay gobolkan taariikhuna insha Allah way qori doontaa jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba